maalin weyn oo mudan ayay u tahay dadka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyadoo isla markaasi caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ay la mid noqon doonto caasimadaha geeska Afrika iyo kuwa dunida. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu saaka dib u furay in ka badan 50 waddo ah xirnaa muddo ka badan 10 sano kuwaas oo xirnaa sababo amni dartood waxaana haatan waddooyinkaasi dib looga furay dhagxaantii caratuuriyada ku xirnaa iyadoo isla markaasi haatan si toos u adeegsan karaan shacabka iyo gaadiidka ku dhaqan gobolka Banaadir. talaabadan ayaa ah mid muujinaysa isbeddelka ku yimid amniga caasimadda isla markaasi haatan magaalada Muqdisho ay tahay mid nabdoon amnigeedana uu yahay mid la isku haleyn karo iyadoo ay dadka badankooda ay soo dhaweeyeen talaabadan waxaana ay tahay mid lagu bogaadiyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. waddooyinka Muqdisho waxa ka jiray caqabado fara badan kuwaas oo sababayeen waddooyinka xiran iyadoo isla markaasi magaalada ay ahayd mid la circiraysa jaamka iyo jidadka xiran. ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed saaka waxay u tahay maalin weyn iyadoo caasimadda Muqdisho ay noqon doonto mid waafi ah oo aan lahayn saxmad iyo ciriiri. maxamed cali qadaye FTV TV Muqdisho.